madax dhaqameed oo hogaaminaya garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale oo iyo waxgarad culimada diin uqaal ka kala socda gobolada Sool iyo Buuhoodle oo 25 caanamaal ku sugnaa deegaanka Higla ka dhacday oo ka tirsan gobolka Buuhoodle oo halkaas uu joogay heshiisiinta laba arda oo walaalaha wada deegaankaasi ayaa ka soo saaray go'aano dhaxalgala iyagoo ugu baaqay dadka deegaankana in nabadgelyada ay ilaaliyaan warayna waxa halkaasi ka hadlay garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale iyo waliba garaad Cabdirasaaq garaad Soofo Duraan Suldaan Siciid oo dhamaantoodba si isku mid ah u sheegay waxtarka ay nabadgelyada iyo wada noolaanshaha dadka reer guuraaga ah ay u leedahay bulshada deegaankaasi walaalaheen cali gari bahar sameeyay sida salaadiintu sheegeen xaalad adag weyn Soomaalidu waxay tiraahdaa geel didid lagaga maharo hawshaasi way soo laba kaclaysay hawshaasi hadii cid lagu tuhmayay iyo hadii laga cagajiiday waxaan u maleynayaa hadii laga sheekeeyo inta hawleeda laga galay raga halka fadhiya qaar ba xabad la dhacay cid la dhacaysaana xumaan wama dhacayni waxa weeye noohada iska ordaysay midna nuwaal ka soo noqonayso oo meesha ay ka timi ku soo noqonayso midna ay hawd ka imaanayso baa isjiiraya way dhibaataysan ee dadka dhibaya weyn kuwaas horta waxa weeye colaadaha inta badan huriya hawsha hadeer markaanu noqono way isu qeyshanayna dhulwaayadu isu qeyshadaan baali waynu kamira dhalanayna waynu isugu tagaynaa waxa weeye waliba hadeer waxba la diiway waa bistriyi labadu waa bistriyi aan fikmara haddii fikta mara ku kicino wallahi waa bistriyi waa dadkeeni waa garabkeeni waa gaashaankeeni waa tolkiin halkan waxaan u marinaynaa qofkii sharka ka dhaxwado ee qurbaha joogo sharka laga bilaabo maanta wixii hore kugu filaadeen ilaahay intaad ka baqdo allihii ku abuurtay intaad ka cabsato labada reer qofkii dib ka dhaxwado meesha doonto joog haddaad dhiig rabtay inaad wax disho wax waa dishi dadkii waa dhamaaday dumarkii baa la laayay caruurtii baa la laayay dibkaaga intii hore ku ekaado waxaanu leenahay qofkii maal haysto qofkii xoog lahow qofkii aqli lahow haddaad rabtay inay ku barakoobaan dhibaato dambe ma jirto dhibtii intii hore lagu joojiyo dhibaatada intii ay dhacday lagu joojiyo labada reer waxaan ugu baaqaynaa walaalayaal qoriga xabada ka saara oo aqligu ha shaqeeyo raiiska kaaya ilaaliya hooy warhooy annagu awood kale ma lihin laakiin cidda nala yidhaaha dhib bay wadaa oo arrintaa waa xumaynaysaa waa eegnaa ama carabkaanu ku qabannaa ama ishaanu ka soo eegnaa is-ilaaliya nina walaalaha ay guriga ku wada jiray ee tuulada wada lahaa ee magaalada wada lahaa ee ilma abtiga iyo adeerka isu ahaa waa takhayr cabdi iyo bahar salmaanta kala haysata saddex guddiweynta dhexdhexaadinta lambar 4 gudiyada Axmed Garaad iyo Barkad lambar 5 gudiyada Cali Gari Axmed iyo Maxamuud Barkad dhammaan gudiyadaasi waxay halkan ku cadeynayaan in dhibaatadii naxdinta lahayd ee ka dhacday Higla ka dhacday dhamaadkii bishii koowaad 2017 ee dhexmartay labada beelood ee kor ku xusan kadib markii la galay wada hadallo qaatay waqti dheer ilaahay mahadiis in ugu dambeyntii laga gaadhay heshiis buuxa waana sida hoos ku cad lambar 1 waxaa laga xukumay dhimashadii 3 nin ee halkaa ku dhintay midkiiba 100 halaad oo lagu bixinayo muddo 6 bilood oo ku eg muddadu waxay ku eg tahay 15 bisha 8aad 2017 walba qoraalka waanu siinaynaa lambar 2 dhaawaca waxaa la xaqayaa marka magta la kala qaadanayo 15 bisha 8aad 2017 waxayna taas waa caddahay lambar 3 cidii dhibaato dambe geysata waxaa la waafajinayaa shariicada islaamka deegaanka Higla ka dhacday oo ka tirsan degmada Wulwul ee gobolka Buuhoodle ayaa ugu horreynba halkaasi ka muuqatay sansaan nabadeed iyadoo bulshada labada arday walaalaha ay shaqaqadu dhex martayna u kala xukumay diyooyinkii ay isku lahaayeen 25 caanamaal ee ku sugnaayeen madax dhaqameedka
ayaa dadka deegaankaasi kulana gaargaara kula qaatay iyagoo ugu baaqayay inay nabadgelyada iyo wada noolaashaha ay ilaaliyaan. waa Barkhad Cumar Axmed, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Laascaanood.